halganka isbedel waa socdaa annaga ku nimid isbedel dhab ah isbedelkiina waa socdaa 13 ka dhalinyaro ee hormoodka ahaa inay ahaayeen dad visionary ah oo ka duwan dadka hadda nool waxay lahaayeen hadafkaasi kaliya ma ahayn xornimo doon wuxuu ahaa isbedel doon oo xaaladda lagu jiray iyo gumaysiga lagu jiray ummadda Soomaaliyeed inay ka baxdo oo ay hesho mustaqbal wanaagsan waxay fahamsanayeen in dawladda loo qaybay 3 qaybood qayb sharci dejin ah qayb xukun ah iyo qayb maxkamad ah 3 awoodood oo kala qaybsan oo balance gareynaya dawladdan hadda joogto maxay ka baran ogaada annagu waxaan ku nimid isbedel doon yaan ku nimid isbedel doon kala sheega ma ahee waa isbedel doon dhab ah yaan ku nimid oo aan niri xaaladda jirto waxbaan ka bedelaynaa inta yar aan joogno halganka isbedel waa socdaa annaga ku nimid isbedel dhab ah isbedelkiina waa socdaa annagoo ka baranayna wax Israel annaga tilmaan Israel baa noo ah ogaada ma aha waxaan adduunka ka baranayno waa waxaan indhaheena ku aragnay weeye waa awooyaasheen waa aabayaasheen weeye waxay sameeyeen oo u hagaagay oo u shaqeeyay aan hubo annagu inay noo shaqeynayso oo maxay tahay in aan mas'uuliyadda shacabka aan la wadaagno